Asalaamu calaykum soo dhawaada daawadayaashan sharafta leh haddii aad ka mid tahay dadka xiiseeya sheekooyin kala duwan adduunka daafihiisa ka dhaca channelka ayaa ka heli doonta si aysan ku dhaafin wax kastoo cusub subscribe dheh gambaleel ku furo like share-tan ha ilaawin sheekadana maanta waxay ka dhacday dalka Suudaan Aasiyaan joognay Afrikaan imaanay waxaa jirta tuulo ku taalo dalka Suudaan oo la yiraahdo Soodari aaba ayaa ku noolaa xaas ayuu lahaa gabar ayay u haysay muddo ka bacdi xaaskiisii way dhimatay gabadhiisii u haysan jiray haddana xaas labaad ayuu doontay markay xaaskiisii dhimatay xaas kale ayuu guursaday muddo ka bacdi ilma suus iyo madaale u dhashay aabihii gabadhiisa Raya ayaa la dhihi jiray gabadha Raya wuxuu ka dhigtay qowsaarad ama ari raacdo ama ari qumiso Raya tuulada Soodari subaxii ariga ka raacdaa baadiyaha geesaha maqribkii soo celin jirtay maalmaha kamid ah Raya waxay dhumisay 4 eri ama 4 ari dabcan ayada ma dhuminin asaga dhumo lagu leeyahay Soomaha ariga asaas soconaay 4 ari ayay dhumisay Raya aad ayay u walwashay sababtoo ah aabaheed wuxuu ahaa dadka agtooda aan qalad ka dhicin qalad ma jiro haddii qof qaldama asaga bisa qaldami karo waa dadka la yiraahdo lama canaantaan ayaa caanihi daadshay almuhim Raya aad u walwashay maqribkii soo noqotay oo u sheegtay waxay tiri aaba 4 eriyaan dhumiyay meel kasta waan ka raadiyay waan waayay wuxuu yiri aaba heeli soo dhawaahee saamaxaad ma jirto ciqaabtaada qabso Raya waa la ciqaabay ciqaab dheer ka bacdi odag wuxuu ku fakiray ciqaabtan maba ku fila gabadhaanbo marka odag wuxuu ahaa dadka caabudo shayaadiinta oo dhiig u daadiya waxaas wuxuu ku fakiray inuu dhiig u daadin jiray ayada ka dhigaba oo gabadhaan markano qalo marka wuxuu yiri gabadhaydii soo dhawaaw ama ceel marka tuulada waxa ku yaala ceel ay dadku ku xantaan in jin iyo shayaadiin degiin acuudu billahi min shaytaan rajim dabcan ama ceelka fulaan aan kugu ridaa ama mididaan aan kugu qalaa labadaas mid dooro gabadhii yareed aad u walwashay way barbarisay laakiin odagii faa'iido ma lama dhaafaayo bal eedadii oo odagu qabay intee ka baxday may ka celiso horaa loo yiri eedan la yaabay arxankeedu daranaa ishay kugu gubtaayo ushay kugu tuntaa inay sas aheedo umaleena eedooyinka laakiin qaara fiican oo booska hooyada inkastaan la geli karin oo qof qaada karin laakiin booska hooyada ma arkin soo dhadhaweeyo laakiin eedadan eeda fiican ma haya almuhim gabadha yareed odayga waa la orday ceelkii fatq ku soo siiyay uu soo laabtay tuuladu ku soo noqday asoo qaylinayo ha gabadheydii Raya dhuntay Raya la asan yahay dadkii tuulada subax kasta Raya raadin jireen habeenkii way seexdaan subaxii Raya raadiya Raya marka ceelka lagu riday ma aysan dhimanin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku aadiyay geed weyn oo ceelka ku jiray qabsatay halkaas ay Raya joogtay saarneed geed korkiisa saarneed maalmaha kamid wiil yar oo Raya camal ah oo qowsaar ayaa wuxuu maqlay ceelkii lagu xaman jiray waxyaabo kala degan ummad kala degan ayaa wuxuu ka maqlay cod bilaadan wuu soo dhawaad wuxuu yiri yaa taa adiga jinni ma taa mise insi ceelkii waxa ka soo baxay cod gabar yar oo dhaysa ana Raya wiilkii yara wuu ogaa in Raya la sanay tuulada ka maqanta wuu orday wuu qeelshay Rayaan helay Raya ceelkaani ku jirta waaw dadkii tuulada isku imaadeen Raya ceelka laga soo bixiyay booliska loo wacay isbitaalka tuulada la geeyay Raya markay xoogaa la daadaaway aabaheeda loogu wici rabay laakiin waa la wareystay waxa la yiri Raya sideed ceelka ugu dhacday waxay tiri ani ceelka keligay kuma dhicin aabahay ayaa ceelka ugu riday aabahaagii aan habeen iyo maalin kula raadinaynay ma adiga ceelka ugu ridaha hay waa la baxay waxa loo tagay Raya aabaheed oo ka qasneen oo rootigiisa dubanayo caanihiisa maalayo bashbash iyo barwaaqo ku jiro waxa la yiri abuhelo soo istaag hadub weynaan soo bax mufaajaca lagu haa kadis fiican lagu haa waa la kaxeeyay Raya loo geeyay odag markuu Raya indhaha saaro wuu qalqalay wuu walwal aad u naxay dabca dambigiisu waa cadi Soomaha ma farxin gabadhiisa kuma soo boodin wuu naxay meesha ka farxi lahaa waxa la yiri hal saamaxo mulug saamaxa la waa lagu dilaa sida lagu dilaan Raya qaraarka gaaraysa Raya go'aanka gaarto saasa lagu dilaa almam Raya go'aankeedu way gaartay waxayna tiraabe waa saamaxay ha u noqdo xaaskiisa ilmihiisa odagii xaaskiisa ilmihiisa u noqday Raya marka waa la weydiiyay waxa la yiri 40 bari aad ceelka ku jirtay sideed u noolad Raya waxay tiri nin dheer oo cad oo dhar cad xiran ayaa ii imaan jiray wuxuuna isii jiray caana garoor milix lagu daray carabaha badankooda caanaha garoorka milix ku dartaan dabcan been ma ahan marka way sheegtay waxay tiri caana garoor milix lagu daro ii keen jiray qofkaas cad saas ayaana ku noolaa waxayna ku tiri waxa la yiri waliga ma kula hadlay waxay tiri hal wuxuu ila hadlay maalinka ugu dambeysay oo aan arko oo ahayd shalay wuxuuna ugu yiri maanta ayaa kuugu dambeysay ceelkan intaas ugu yiri tiri
marka raya magacii dadka tuulada ka bedeleen wuxuu u bixiyeen gabadhii aad adkeed maadaama ay saamaxday ilaahayna ceel kasoo badbaadiyey muddo ka bacdi raya way soo weynaatay dadkii faamiligeeda ahaa tuulada deganaa wiil kamid aha guursaday hal sano ka bacdi guurkeedina raya way dhimatay waxayna u dhimatay xanuunadii ay ceelka ka qaaday ma aysan fiyoobeen marka xanuunkii iyo nafsiyadii ay ceel kasoo qaaday ayay u dhimatay raya sheekadeeda halkaasay ku dhamaatay ilaahay subxaanahu watacaala cadow gacanta nooma geliyo mid noo dhow iyo mid naga dheerbo channelka sheekada ku xigta si ku dhaafin subscribe dheh gambalaalka furo like share tan ha ilaabin. Salaamu calaykum, bye bye.